waxay isoo wacday iyadoo ooynayso, aad u ilmeynayso, aad u murugsan, dareemayso inay aad u dhiban tahay, ilintu ka qubanayso. aad baan uga naxay. waxay ahayd gabadh Soomaaliyeed oo xanuunsan oo ilintu ay ka qubanayso oo la dhiban xanuunka haya, isla markaana ay dareemayso murug fara badan iyo xanuun aad ah iyo wax walba oo dhib qofku uu dareemo. waxay ila wadaagtay qisadeeda, way ii sheegtay hadday seexato inay riyooyin xunxun aragto oo aad ay u dhiban tahay. waxay ii sheegtay inay maalintii markay joogto murug iyo ilin uu wehel u yahay, ilinta ay ka qubanayso, murugtu mar walba qalbigeeda uu holconayo. habeenka dadka seexana ay dareemayso riyooyin aad u qaab daran iyo wax ka soo nixinaya iyo dhibaatooyin badan. waxaan daawo ahaan ugu siiyey oo kula dardaarma 2 suuradood oo dhammaantiin aynu naqaano, laakiin agteena khafiifka ah oo aynu raadino wax iyaga ka weyn, halka aysan jirin wax iyaga ka weyn. 2daas suuradood oo ah falaq iyo naas. suuratu falaq iyo suuratu naas. nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo beedka quruxda badan, sharafta badan, qiimaha badan lagu dhalay, waxyigana lagu soo dejiyey, lagu barbaariyey. 2dii suuradood ee jirkiisa qiimaha iyo qaayaha iyo carafka iyo udgoonka badan sixirka looga saaray lagu daaweeyey ayaan u sheegay. waxaan ku dhahay waxaad akhridaa suuratu falaq iyo suuratu naas 2 qaabba samee. akhri 1 biyo ku tufoo cab, 2 ku qubayso. fa wallaahi 2 maalin lagama joogin markay ii soo dirtay beej dhana ducaa. waxay tiri murugtii iyo xanuunkii iyo weli waxay ii raacaysay lalabo. markastaan cunto cuno waxaan dareemi jiray sidii qof walaca, aad baan u lalaboonay. ilaahay waa iga qaaday. ilaa yowmina haada waxay ku jirtaa farxad iyo caafimaad. walaalkayga xanuunsan, walaasheeda xanuunsan, daawadaadu waa 2daas. rabbiga hooyooyinkan inooga naxariis badan, xaakimka ah, maamulka wanaagsan, naxariista badan, nebigiisu jecel yahay, adduunka ugu jecel yahay, wuxuu ku daaweeyey 2daas suuradood. miyaysan ahayn inaynu ku qanacno oo dhib walbo ina haysta aynu iska dulqaadno? laa wallah, ballankeennu waa 2daas suuradood. waxaan gabadhaa ku dhahay 333 jeer maalin walba akhri. sidii bay samaysay, way ku caafimaaday. adiguna sidii samee. tabtii aan kula dardaarmay gabadhaas samee. qof kastoo i daawanayo 333 jeer biyo ku tufoo cab, kuna qubayso daa'im. xanuun kasta oo ku haya iyo dhib kasta oo ku haysto maalintaasaa kuugu dambaysa. asalaamu calaykum.